ma dhici doonto in aad dib u rumaysato afkaartii reer galbeedka ay faafin jireen iyo weliba hay-adahoodu inta badan waxay xoogga saari jireen oo dadka ay kala hadli jireen laba qodob. qodobka koowaad waxa uu ahaa maamul wanaagga, xorriyatul qowlka iyo dimuqraadiyadda. qodobka labaadna waxa uu ahaa ilaalinta xuquuqaha kala duwan kuwa haweenka, carruurta iyo xayawaanaadka. 5 sano u dambeysay waxaa si dhammaystiran u fashilmay qorshe kasta oo reer galbeedku uu faafin jiray iyadoo ku dambeeyay in iyaguba ay yihiin kuwa ugu badan ee godobta ka gala. haddii aan u imaado qodobka koowaad ee ah ilaalinta xorriyatul qowlka iyo dimuqraadiyadda waxa ay ku tilmaami jireen dhabtii 3 sano u dambeysay waxa ay ku dhacday god dheer oo aan dib uga soo waaqsanayn. wixii la oran jiray international law ama shuruucda caalamiga ah ee qaramada midoobay iyo hay-adaha hoostaga ay faafin jireen si dhammaystiran ayaa waxaa loogu dhaawacay Kiev, waxaa lagu dilay Gaza, waxaana lagu aasay Caracas ama Venezuela. qodobka labaad waxa weeye in badan waxaad maqli jirteen ilaalinta xuquuqda haweenka, carruurta yaryar yaa la guursan, xayawaanaadka ha la dhowro iyo waxyaalaha la midka ah. waad maqashay baan filayaa waxaa ka dhacay jasiiradda Epstein 20 sano u dambeysay. waxa uu ahaa kawaan aadamaha ama ubadka yaryar lagu qasho oo runtii weliba ubadfallada ay geystaan rag maanta inoo sheeganaya inay dunida galbeedka madax ka yihiin. waxaa la soo baahiyey intaasoo milyan oo fayl oo ku saabsan qadiyadda kawaankii bini'aadanka ee weliba carruurta yaryar ee 13 jirada iyo 14 jirada ahaa lagu qalan jiray meesha iyada. cidda qalan jirtay ma ahayn cid iska masaakiina oo tamar daran, laakiin waxay ahaayeen kuwii in badan faafin jiray waxa la yiraahdo ilaalinta xuquuqda oo madaxdii reer galbeedka iyo kuwa la midka ah ayaa ka dambeeyay. sidaa darteed gunaanadka muuqaalkayga waxa weeye dib dambe iyaanay u dhicin in lagugu cagajugleeyo wax la yiraahdo xuquuq maamul wanaag ama dimuqraadiyad ama xorriyatul qowl amase wax la yiraahdo ilaalinta xuquuqda ciyaalka iyo guurka gabdhaha yaryar. sababtoo ah dhammaan arrimahaasi waa ay fashilmeen, fashil dhammaystiran ayaa ay fashilmeen oo aanay dib uga soo waaqsanayn.